Soomaaliya ka jiro haba yaraatee malaha runtan ku sheegaya haddii dowladda jirto waxaan arkayna maanta ma arki lahayn arag dhulkii mudug markii la arkay ciidanka Puntland markii la arkay oo la arkay ciidamada jooga mudug oo la ogaaday awoodda Puntland ay leedahay maxaa lagu jawaabay annaga waa qaldanay mahana ulama jeedin hadduu alla ku idmaayo dhibaato kale ulama jeedinoo waanu qaldannay maxaad ku qaldanteen waxaad ku qaldanteen markaad aragteen teknikadaas ciidankaas markaad aragteen aad qaldanteen soo maa meeshaan marayn arag marka muhiimadda ugu weyn Soomaaliyay ogaada muhiimadda ugu weyn oo maanta dadka laga leeyahay in laga aqal badan yahay ayaa waxna laga dhaadhicinayaa maabkii aan soo bandhignay qalab uu ahaa alloora dowladii ma jirto dowlad aan qariirada Soomaaliyaba haysan dowlad ma ku tilmaami karnaa hadiyaan u sheekaysanaynaa life aan ahay maanta ma soo duubin barnaamijkan waa life waa sheekaysanaynaaye madaxweyne xasan sheekh maxamuud xafiiskiisii waxaa laga waayay maabkii dalka intuu ku jira internetka dowladdu internet la'aan miyaa haysa maya maxay u soo saari weysa qariirada anaa daabici kara adigaa soo daabici kara xafiis dowladeedaa qariirada laga waayay aniga nin waalan ma ii malayaan marka bal arag dad waalan may noo maleeyaan xafiisyadii dowladda iyo internetka miyaa qariiradii dalka laga waayay maya hay-ada hoosta naga gelisay adiga soo dowlad ma tii maxaad u kontrooli weyday hadda haddii dowladdu warqadan gacanta loo geliyo miska qaadanaya dowladdu ma iska qaadanaysaa bal arka jaahilnimada ummadda lala hor imaanaya arag warqad haddaan dowladdu u geeyo qofka mas-uulka muxuu samaynayaa warqaddu eega ma jiraa mas-uul warqadaas asagoonan eegin xaflad qabanaya oo xafladdaasi ku soo bandhigaya ma jira su-aashan jawaabteedaan idinka rabaa sida ay dowladdu noo sheegtaan ka duulayaan ma jiraa dowlad inta warqad loo geeyo ayadoon fiirin xaflad dhiganaysa ma laga yaabaa xafladdaasna dadka ugu sarreeya inay ka soo qayb galaan jawaabtu waa maya halkaas markay marayso sheekadu waxa weeye waa fashil iyo cad dad aan dowladnimada aqoonin baan dowlad u dhiibanay anaa kule dad aan dowladnimada aqoon ayaan dowladnimo u dhiibanay dad aan aqoon nidaam iyo kala dambayn iyo sharci ayaan dowlad u dhiibanay ummad aan hoggaan aqoonin baan dowlad u dhiibanay anaa kule arrinta shidaalka wallaahi waa ku faraxsanahay dalkayga inuu shidaal yeesho oo bilaahi oo tallaahi sidaan u jecelahay dalkayga inuu batrool yeesho si lamidaan beenta u necbahay ayaan beenta u necebahay laakiin waxaan diidayaa howl uu qabtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya wallaahi waa kana oo bilaahi oo tallaahi dukumentiga waa kana madaxweyne farmaajo khayr allah ku siiyo howl uu qabtay madaxweynihii hore inta la dhihi lahaa qor isku dhiib weeye arrintan ayaa lagu leeyahay xasan sheekh maxamuud dal xoreeye aanuu adeerkay yahay anaa runta u sheegaya dalow xoreeyey ummadoo wax u qabtay ma jiro anaa kuu caddaynaya anaa iimaan leh anaa sharaf leh anaa oggolayn inaan durbaan u tumo kooxda damujideed anaa runta ku sheegaya intaas horta faham maanta marka muhiimadda igugu qosolka badan waa taas marka maxaa la sameeyey markii la arkay in la fashilmay waxaan soo kordhi doonaa live-ka horta raalli ahaada live-kaan soo kordhi doonaa si fiicanaan u sheekaysan doonaa wacdarooyin fara badanaa soo socda wax badanna waa kasoo sheekay doonaa insha allah aniga waddada saxda ah oo aad shalay igu ogeyd ayaan weli ku taaganahay mana laga yaabo laba arrimood haba isdhihin madaxweyne xasan iyo kooxdiisa balwaan iibi kara haba is oran aniga beec maahi aniga ummadayda Soomaaliyeed waa ii siman tahay aniga wadajidka iyo wada socodkan jecelahay aniga nidaam walba oo dhaqaaqayaan taageeraya marna lagama yaabo inaan ummadda Soomaaliyeed dhabarjibin ku noqdo sidaa darteed beenta waa shay xaaraan waana ka soo horjeeda waxaa ku soo haray damu jadiid batroolan ku aaminaynaa soma batrool haye barwaaqan gaarayna haye yaa madaxweyne noo ah marxuum nin canshuuraya ma dhintahaa canshuur
قف ما كان انت عنشور بحي ما لغو فري عنشور ما لغو قرصة عنشور ما الدولة ميد عنشور يسان شلال كسوغينا هذا كهرباء حسن شيخ محمود هل سنة يلح بالوضع قدما مدحوينها كحيقة أيها بترول كاس نصو صاري دون بترول كاس مدحوينها كحيقة نصو صاري دون هذا انقر درنا هاي هذا قاعد قبان كرا اسوافجي مدحوينه هلا يوحو يري اوكيالها ان وطو waxaan ku arkaa batrool iyo horumar yaa dhahaya xasan sheekh qariirada hortiisa taal qariiradaas muxuu arki waayay shidaal badda hoostiisa ku jira hadduuba arkay muxuu arki waayay qariirada hortiisa taal waa been waxba kama jiraan waxaa lagu dayayay bal inay nool yihiin iyo inay dhinteen Puntland iyo SSC qaato markay Puntland soo jawaabtay waa laga laabtay maamulka Hirshabelle waa la inkiray waxaa laga dhigay hiiraan iyo shabeellada dhexe ha ka saarto qofka maanta marka durbaan tumaya oo isla shidaala lagu soo saaraya isku kay qabadsi meeydan cashuura shidaalna waa soo saaraya aadan ku salaamaya jirdo xuseen meeydan cashuuraya waxaana soo saaraya mas'uulay meyd baan cashuura waxaana soo saaraya batrool iswaafaji gabadha la furaan cashuuraya batrool aan soo saara haye had bal arag waxyaabo laga xishooda jira waxyaabo laga xishoodo ayaa jira arag marka meesha la marayo nasiib darrada meesha talaarag maanta meeshan taaganahay arag mar labaadan ku celinayaa qariirad qaldantay ma jirto ujeedo ayaa loo qariyay waana lagu dayay inaan noolnaha la arkay waana laga soo jawaabay kadibna dib ay uga laabtay intaas ogaada qariirad luntay ma jiro maxaa yeelay madaxweyne fiiri qariirada intay ku jirtaa laptopkaaga qariirada intay ku jirtaa internetka meeqay qaadanaysaa in qariirada la daabaco wax ka yar 5 daqiiqo wasiirku wuxuu leeyahay waqtigan u weyn ceebta Allah hastur wasiirku wuxuu leeyahay waqtigan u weyn bal arag madaxweynuhu waxa leeyahay wala waay qariirada Soomaaliya ma laga waayay qof xafiiska dawladda ka shaqeeyo oo daabaca waxaan marka waa ujeedadaas maxay ahayd in lagu dayo qariiradan waa dhab waa xaqiiqo waana lagu dayay balse waa iska qabanay taasi waa guul iyo gobonimo Soomaaliya waa guul iyo gobonimo waa ku faraxsanahay waana soo dhaweynayaa inay fashilmaan kooxdan damujdiid waa soo dhaweynayaa mar kale aan ku celinayaa qofka wuxuu isoo qoray maadaama live ahay dhanka wanaaga wax ka eeg nacashihu very good سؤال فيها ما كجواب يعني ما أنت حر نعس وحال يرادا قفك ومدة دربان قبيل لسه هرس كاجي إيه لاروش قفك قات قفك سنعس الحمد لله أنا لاروش مقاطو قبيلنا متهاجر صومالي طبع أو حقيقة التلمامي كرانه ما حنكون وناجيا دم جديد أو نقدر حية وحبا موحن إرادا حسن ضل حرية ضل كله حرية إيش إن كبدن سراكيش نجا إمتى حسن شيخ أنتو جوبي شن يتواصل نجا مدبن شن يتواصل نجا مدبن ورموحن اللوبا حسوق اللوجستي عيدا كقرنك مسوحان لي هذا مدحوينه ونن هوية ونن هرابة أنا جاي أدلك هاي سنة إلهي يذكرني تاسوا شرف مهمة دمك قلنا أنا جا talada dalka haysa wax kale oo ku tilmaami kara ma ayax baahan oo aan dhargeyn waay runtan idin sheegaa soo dhawaada saaxiibada qadarinta leh waxaan ka jawaabayay oo live-kan u soo galay arrintii qariirada inta hadda la soo qabsatay barnaamijkan waa live ma duubno su'aal walban ummadda uga jawaabaya si toos ah oo live aad ii daawanaysaa qariiradii shalay la soo bandhigay ee lagu xadgudbay dhulka uduga ee Puntland lagu xadgudbay maamulka Hirshabelle lagu xadgudbay galmudug la yiri wax la yiraahdo Hirshabelle ma jiro la yiri galmudug waxay ka kooban tahay hal gobol oo ah galguduud mudug waxa la yiri waa lagu muransan yahay dhulkii Sool iyo Sanaag iyo Caynon hal sano ka dagaalamay ay waxay ii keeneen waa lagu muransan yahay waa dhulkan xoreeyay waaya dhulkii aan xoreeyay ee anigu agtayda saaray ayay dhaheen dhul lagu muransan yahay waa ma heshiis naga dhaxay heshiis naga dhaxay ma jiro haddaad isleedahay Cabdullaahi Balwaan jagaa lagu booday iyo lacaga lagu boodana nin baahan haddaan ahay xamaran tiglaha nin baahan
haddaan ahay ama xil uga baahanahay wallaahi xamar aan tegi lahaa miyay aragteen anoo xamar tegaya lagama yaabo intay damujdiid madaxtooyada joogto inaan xamar tago ujeedadu maaha magaaladu waa magaaladeedii laakiin wax kale maaha ujeedadu waxa weeye qoladan qowlaysatada ah afkayga kula dagaalamaya waana hubaa inaan ka adkaan doono shirkii golaha wadatashiga qaran magacii fashilmay ayaa waxa ay wararku sheegayaan in la isku yimid saddexdii madaxweyne maamul goboleed iyo haddawaa saddexdii jeebka ku jiray iyo xasan sheekha isku yimid shirkii waxaa la yidhi is-aragga koowaad uu noqonayaa hordhigay haye waa ka soo hadli doonaa tan shirkii waa la isugu hor yimid madaxweyne xasan sheekh maxamuudna wuxuu u dacwooday madaxweynaha kenya caawaan ka soo hadli doonaa kaas madaxweynihii jubbaland ayaa laga dacwooday madaxweynihii kenya looga dacwooday madaxweynihii jubbaland waxaa la yidhi naga qabo waa madaxweynihii ugu horreeyey muwaadinkiisa kenya uga dacwooda fadeexadaas caawaa noo ballana caawa life kalaan soo geli doonaa caawaa noo ballana taasi arrintaas waxaan ka sheekay doonaa caawa laakiin muhiimadda hadda taagan waxa weeye arrintan fashilka ah shirkii muqdisho ma la isku yimid iyo kaadaan akhriye magaalada muqdisho caasimada soomaaliya waxaa ka saacadahaas dib u furmay shirkii golaha wadatashiga qaran yaa joogo lafta gareen alla ku ceebeeyo yaa jooga qoorqoor yaa jooga cali guudlaaw shirka loo wadatashi qaran ma jira maya ujeedada shirkan laga leeyahay maxay tahay muddo kordhin ma ogolaanaynaa ha sheegin xasan sheekh shalay isagaa qoray qaatay xabad ku riday madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo maantana qoray ayaa looga hor istaagaya anaa ku dhahaya cid kale ha weydiin inuu xasan intuu madaxtooye tago uu joogo habeenka xalay oo tago waay waxba yaan ummadda beenta loo sheegin waxaan ku faraxsanahay in wax kastaba natiijo wax ku oola ay ku dhammaan doonto sharuudihii axmed madoobe lay soo dirayaa caawan ka soo hadli doonaa ayay sharuudaha uu soo saaray caawan ka soo hadli doonaa sharuudooyin muhiima ayaa miiska ii saaran madaxweyne axmed madoobe iyo arrintiisa caawan ka hadli doonaa marka batroolka soomaaliyey aniga cid iga jecel male laakiin beentaan necebahay batrool xasan sheekh haddaad ka sugtaan dad waaranaad tihiin isbitaalka waalid aada waay war nin ka xishoo waaye meyd haddaad batrool ka sugta hor batroolka xasan sheekhaa noo qoda hadda waa nin meydka meyd xasan sheekhaa noo qodaya batrool meyd aadan waxumahay qabaa'ilada iyo dagaaladana sirtooda waa ka soo warrami doonaa shabeellada dhexe dad walaalaha codgaala ayaa la isku diraya shabeellada hoose hawiye iyo digli midifla madaxa la isku geliyay walaalahay halkaa deganna waxaan leeyahay damujdiid qorshahay wadato waa kaas maantana maxay rabtay inay gaalkacyana dagaal ka riddo bal arag gaalkacyo inay dagaal ka riddo galmudug lagu dagaalamo hirshabeelle lagu dagaalamo shabeellada hoose lagu dagaalamo inta dagaalkaasi la wadana ay batroolka kaligood qaataan lacagii batroolka waa sax axmed madoobe iyo dani maanta wuu ka soo hadlay waa sax laakiin insha allah wixii duuduuban arrintaas waxaan uga hadli doonaa iyadoo duuduuban caawa lifekayga kale caawaan uga soo hadli doonaa waxaan rabaa marka dadka inay mid ila fahmaan intaanan ka bixin lifeka shanta madaxweyne maamul goboleed aan idin kala baraya saddexdan hadda xasan sheekh la joogto waa nimankii khiyaanay madaxweyne farmaajo ma ilowdeen madaxweyne farmaajo ayaa khiyaanay qoorqoor cali guudlaawe iyo lafta gareen muxuu ka faa'iiday farmaajo inuu saaxiib ka dhigto waxbana horta ogaada saddexdan qofka wato waa qof fashilmay qofka lafta gareen qoorqoor iyo cali guudlaawe aamina waa qof fashilmay shalayaa jilbaha dhulka ugu dhuftay marka labada shanta madaxweyne labadan hadda saaxiibaday saciid cabdullaahi dani iyo axmed maxamed salaam axmed madoobe go'aankooda waa mid adag waana ka adkaan doonaan xasan sheekh meel iiga qora ma ogolaan doonaan waana ka soo warrami doonaa arrintaas insha allah dalkuna waa barwaaqu gaari doonaa laakiin waa damujdiid kadib haba rajayni war ma axmed macalin fiqi xasan sheekh maxamuud iyo yuusuf madaale iyo xamse cabdi barre miyaan ka sugaynaa dal barwaaqa no ma dhacayso waayahay wixii ku soo kordhaa barnaamijyada kale ayaan idinkugu soo gudbi doonaa caawa iyo lifeka xiga xiisuu leeyahay halkaana life ka soo geli doonaa
lifeka caawa waxba layskuma yaraysan doono waxaan soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyey oo ugu xiisaha badnaa halkan ayaad igala socon kartaa facebooka bejka cabdullaahi balwaan ummadayda sharafta leh daawatay daawad doontana waxaan u sheegayaa anigu waxaan qaatay soomaalinimo iyo sharaf iyo cizo qof kasta oo soomaaliyeedaan la safanahay si kale markaan hadalka u dhigo cid kasta oo dalkan toosinaysa qabiilku doona ha ka soo jeedo waa la safanahay qabiil ma qoro ha iga sugin ilma adeernimo qofaan ku difaacaya male anigu bannaankaasaan taaganahay waxaan ka hadlayo waa wax xaqiiqa oo taagan ciddii dulmiga wadda cidday doonta ha ka soo jeedo karbaashkaygu waa diyaar lifeka caawa yaynu ku sheegin waana idinka raaligelinayaa bejkan maalmahan waa dee waktigii ciriiri fara badan iyo dee waktigu waa iska ciriiri laakiin lifafka ayaan kordhi doonaa wax badan baad halkan kala socon doontaan insha allah waana la guulaysanaya waan hubaa in la guulaysan doono waan hubaa shaki kuma jiro marka lifeka kan xiga yuusan ku sheegin intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmi doono nabadgelyo